shir ay isugu yimaadeen guddiga ugu sarreysa ee sanduuqa horumarinta Somaliland SDF oo ka kooban xubno wasiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Cawaale Ibrahim Shirwac xubno ka socda wadamada qaaraan bixiyaasha ee ku bahoobay sanduuqa horumarinta Somaliland iyo hoggaanka sare ee maamulka sanduuqa horumarinta Somaliland SDF ayaa ka qabsoomay habeenkii xalay ahaa Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana ujeedadiisu ahayd sida ay xukuumadda Somaliland iyo wadamada qaaraan bixiyaashu ay uga wada hadli lahaayeen mashaariicda si dhamaanaya ee laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland SDF wixii ka qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin sidoo kale waxa ay mas'uuliyiintu ka wada hadlayeen xilliga uu bilaamayo wajiga labaad ee mashruuca sanduuqa horumarinta Somaliland SDF intii kulankani socday ayaa waxa warbixino la xiriira halka ay mashaariicdu marayaan iyo sidoo kale mashaariicda dhamaaday soo bandhigay xubno kamid ah maamulka sare ee SDF kadib markii uu shirku soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Cawaale Ibrahim Shirwac waxaana uu ka warbixiyay ujeedada kulanka waxaana hadaladiisa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim mudane yaaliye marwooyin habeen wanaagsan waxa caawa halkan noogu marti ah deeq bixiyaal ka socda wadanka Ingiriiska Denmark Norway iyo Holland deeq-bixiyaashaas oo caawi noogu yimid sidii aan uga wada hadli lahayn mashruuca si dhamaanaya SDF1 waxyaabihii uu qabsoomay waxyaabihii aan aad u shaqayn mashaariicdii la fuliyay iyo sidii ay wada shaqaynta u lahaayeen mashruucaasi SDF iyo dawladda Somaliland waxaanu ka wada hadalay deeq-bixiyaasha baahiyaha jira waxyaabihii la qabtay sida ay u dabooleen baahiyihii jiray waxyaabaha hadda taagan sidii loo sixi lahaa mashruucaasi wixii qabsoomay waxna looga baran lahaa mashruucaasi deeq-bixiyaashu sidoo kale waxay noo sheegeen in ay aad ula dhacsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay wadanka siyaasadaha ama qorshihii xisbiga ku guuleystay wadanka mashruuca ama qorshaha qaranka ee labaad NDP2 waxaanay nala qaateen inay caawimo naga siin doonaan ama nala shaqayn doonaan mashaariicdaasi waxa kaloo nasiib wanaaga inaan caawa halkan isla qaadanay in mashruucan SDF1 uu ku xigi doono SDF2 marka uu dhamaado mashruucani oo ku eg ilaa bisha 8 ee sanadkan marka mashaariicda socota dib u eegidoodii wasaaradda qorsheynta iyo deeq bixiyaasha ayaa isla qaatay waana dib baan u eegi doonaa wixii qabsoomay waxna waanu ka baran doonaa marka inta laga gudbo deeq bixiyaashu ama wafdigan heerka sare ahi waxay naga wareysteen qorshayaasha u qorshaysan dawladda sanadada soo socda wasaaradda qorsheynta oo anigu wasiir ka ahay waxa ay hor dhigtay qorshayaasha sanadka dawladda hor yaala iyo wixii ugu qorshaysan sanadada soo socda marka waxaanu isla qaadanay inay waxyaabo badan inaga caawin doonaan nala shaqayn doonaan waxa kaloo u sheegnay inay mustaqbalka fog anagu dawlad ahaan aan rabno inaan isku tiirsanaano aananu qabsano wixii mashaariica wada shaqaynaya inaga xeeyaan dadka dawladaha aanu saaxiibka nahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulankaasina wuxuu noogu dhamaaday jawi aad u fiican iyo ballanqaad inaanu sii wada shaqayno KT oo ku hadlaysay afka qaran bixiyaasha ayaa Somaliland uga mahad celisay doorashadii dhawaan ka qabsoontay Somaliland iyo sidii fiicneed ee ay u qabsoontay sidoo kalena KT waxa ay sheegtay in casharadii laga bartay wajigii hore ee SDF ay noqdaan mid khibrad kororsi u noqota wajiga labaad ee SDF